السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن ونكسن داود الكسور دوادا ورك عيارها بولش سبورت وأنا حسن عمر حسينة قضى بدن نهاية أنا وحكمت كريستيانو رونالدو سيجوج دون جيفنتوس أيا ضرب صوب نكتل لوكاتيلي غابرييل بربوزا أيا ضرب كهلا ويست هام إيو إيفرتون مان سيتي وصيها سنة سيسترين حقاقا intaas waxaan qodobada wararka haadana ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan Cristiano Ronaldo oo sii joogi doona Juventus qodobkaasi waxa eegaya beebaaye ciyaaraanka kooxda kubadda cagta Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa lagu wadaa inuu ku sii sugnaan doono istaadiga kooxda kubadda cagta Juventus xilli warbaahinta dalkaasi Talyaaniga ee maalmihii ugu dambeysay ay hadal hayeen sheekooyin ku aadan in Cristiano Ronaldo midkood uu dhaqaaqi karo sida Manchester United iyo Paris Saint-Germain balse madaxa kooxda kubadda cagta Juventus ee Pavel Nedved ayaana markaa xusaya in Cristiano uusan meelna kaga dhaqaaqi doonin kooxda kubadda cagta Juve xaqiiqdii aad ayaan ugu raaxaysaa kubadiisa marka uu ka dhex muuqanayo kooxda waxaan aad ugu faraxsanahay ku soo laabashadiisa xirada tababarka ee kooxda kubadda cagta Juventus isbuucii hore tani waxay ii tahay dhiirigelin waayo Ronaldo waxa aad u xiiseynaya dhammaan taageerayaasha kooxda kubadda cagta Juventus waan ku faanaa mana jirto sheekada ku aadan in Cristiano Ronaldo uu isaga dhaqaaqi doono Turin kooxda kubadda cagta Juventus ee Pavel Nedved uu raaciyay in Cristiano Ronaldo ilaa hadda uusan ka maqlin dhawaaq ku aadan ka dhaqaaqista kooxda kubadda cagta Juventus maadaama Cristiano Ronaldo heshiiskiisa kooxda kubadda cagta Juve ee kaga harsantahay muddo hal sanadood waxaana meesha uu ka saaray sheekada ku aadan Ronaldo inuu u dhaqaaqi doono Manchester ama Paris Saint-Germain Juventus ayaa dalab u soo bandhigtay Locatelli qodobkaasi waxa eegay Xuseen Cumar Pavel Nedved oo madaxa kooxda Juventus ayaa xaqiijiyay inuu soo bandhigaan dalabka macquul ah laacibka khadka dhexe ee Sassuolo Manuel Locatelli Nedved wuxuu u gudbinayaa inuu dalab tartan ah ugu dambeyntii maamulka kooxdiisa xagaagan balse wax jawaab maysan ka helin Pavel Nedved ayaa ugu dambeyntii yiri wali waan wadnaa qorshihii aan ku heli lahayn laacibka reer Talyaani ee Manuel Locatelli Gabriel Barbosa ayaa dalab ka helay West Ham iyo Everton qodobkaasi waxa eegaya beebaaye kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska ee West Ham United iyo Everton ayaa guud ahaan baxusay inay u dhaqaaqi doonaan laacibka kooxda Flamengo ee Gabriel Barbosa ciiraankani 24 jirka ayaa loo arkayaa mudnaanta koowaad inuu ku wanaagsan yahay oo soo dhaqaaqista horyaalka wadankaasi Ingiriiska ee Premier League balse kooxahani ayaa laga doonayaa in ay la soo shirtagaan adduun lacageed gaaraya 40 milyan oo lacagta ganiga xagaagan wiilka Brazil ee Gabriel Barbosa ayaana markaa la filayaa in guud ahaanba uu soo macsalaameen doono horyaalka dalka Brazil gaar ahaan kooxdiisa Flamengo kadib markii laacibkaasi oo kooxdiisa u dhaliyay 15 gool 17 kulan uu u saftay xil ciyaareedkani isbedel walba Gabriel Barbosa ayaa hadda loo malayn karaa inuu u soo dhaqaaqi doono horyaalka wadankaasi Ingiriiska maadaama kooxaha West Ham United iyo Everton ay koox walba baxusaysa inay ku soo guuleysan doonto saxiixiisa maadaama sidoo kale la dareensan yahay Gabriel Barbosa inuu aad u xiiseenayo inuu ka soo dhex muuqdo horyaalka wadankaasi Ingiriiska xil ciyaareedka cusub Man City ayaa sii haysanaysa Sterling xagaagan qodobkaasi waxa eegaya beebaaye kooxda kubadda cagta Manchester City ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday in ay sii haysan doonaan laacibkooda Red Britain ee Raheem Sterling labadii toddobaadii ugu dambeysay ayaa laacibkani Raheem Sterling waxa la hadal hayay guud ahaanba in uu qarka u saaran yahay ka dhaqaaqista garoonka Etihad Stadium ee kooxda Manchester City Raheem Sterling ayaa hadda ka mid ah ciyaartoyda ugu mushaarka badan ee ku sugan kooxda City asagoo isbuucii uu qaato adduun lacageed gaaraya 300 oo kun waqtiga kan xaadirka tobraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola ayaa sheegay in xiddigan Raheem Sterling uu doonayo inuu ku sii sugnaado kooxda maadaama oo laacibkan uu ka mid yahay shaxda ama tiirarka ugu muhiimsan ee Pep Guardiola uu doonayo inuu la soo shirtago xil ciyaareedkani cusub sidoo kale waxa la xusayaa in Raheem Sterling garoonka uusan ka dhaqaaqi doonin xitaa haddii suurtagal ay noqoto in Manchester City gacanta ay ku soo dhigto xidigaha kala ah Jack Grealish iyo Harry Kane Pep Guardiola ayaa mudnaanta koowaad siinaya ciiraankani inay ka baabi'in doonaan niyadjabka ku aadan in uu booskiisa marka uu ka waayo mustaqbalka kooxda City sidoo kale laacibkani ayaa xiriir kala duwan la sameynaya dhowr kooxood ee ka dhisan horyaalada Talyaaniga Spain iyo Faransiiska Wolves ayaa xoojinaysa dalabka Ramsey maamulka kooxda Wolves ayaa u aqoonsaday xidiga khadka dhexe ee Juventus Aaron Ramsey bal tilmaameedkii ugu sareeyay xagaagan waxayna xiriir wanaagsan ay la sameeyeen wakiilka 30 jirkan ee Aaron Ramsey laacibkii hore ee Arsenal ma doonayo inuu ku laabto horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan
Aaron Ramsey ayaa diyaar u ah inuu u dagaalamo booskiisa kooxda Juventus xilligan. Inter Milan ayaa ogolaatay inay iibiyaan Lukaku, qodobkaasi waxa eegaya Bibaye. kooxda kubadda cagta Inter Milan ee ka dhisan horyaalka dalka Talyaaniga ayaa diyaar u ah guud ahaanba inay gacantooda ka bixiyaan wiilka reer Belgium ee Romelu Lukaku kadib markii la xusay in toddobaadkii ugu dambeeyay ee dalab cajiib ay ka soo gudbisay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. kooxda reer Talyaani Inter Milan ayaa diyaar u ah in Chelsea ciyaaryaankaasi u gacan geliyaan, laakiin waxa ay suurtagal ay tahay in kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay bixiso qiimaha waqtiga kan xaadirka lagu doonayo in Lukaku uu dib ugu laabto gigada Stamford Bridge. Romelu Lukaku ayaana markaa hadda la xusayaa inuu aad u xiiseynayo tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea ee Thomas Tuchel, taasi uu ku tilmaamayo inuu weerarka ku xoojin doono xilli ciyaareedkan cusub horyaalka wadankaasi Ingiriiska. kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa laacibkani u soo bandhigtay miiskana saartay adduuncageed gaaraya 130 milyan, laakiin Romelu Lukaku ayaa shakhsiyan doonaya inuu ku sii sugnaado kooxda kubadda cagta Inter Milan maadaama uu kamid ah hogaamiyaashii u suurtageliyay in Inter Milan xilli ciyaareedkii hore ay ku guuleysato horyaalka dalkaasi Talyaaniga, xilli ay sidoo kale kooxda kubadda cagta Chelsea ay aad markaa u baadigoobayso laacibka kooxda Borussia ee Erling Haaland. intaas ayaan ku soo gabagabeynaa wararka ciyaaraha Bulsha Sport waa anigu Xasan Cumar Xuseen, sidaas iyo nabadgeliyo.